الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى ما أنت وحن كشكنا قصير ودح مرتي الشيخ له أبي يوسف القاضي يهارون الرشيد وتقانين إنه يهي إمام كوينا إسلامك معناها أمير المؤمنين كي تتكي إسلامك يوم مدى إسلامك هيستيد المهم إن قصدنا وقصة عبر ونكسن له أو كتسنا ساعة dadka iimaanka leh ee daacadda ah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisa ka run sheegaya in macnaha ay mar kastaba iyagu fi umuuri xayaatihim al-ibar wal qisas wal ajaa'ib ay ku tusinayso macnaha noloshooda oo dhan waxay ku dhisan tahay layaab iyo ibar iyo qisas macnaha markay leeyahay adduunka waxaan ugu jeclahay qof iimaan leh inaan wajigiisa arko waxa weeye qofka iimaanka kale إيمانك وين له وحوي يحكسو حسوسينيا دينت إلهي سبحانه وتعالى وحق إلهي سبحانه وتعالى يكسو حسوسينيا وحن نقول سامد مركز تبع إن هدو وجهي سقفك أركو سو حسوسينيا إلهي سبحانه وتعالى تعديم كيسا يوينان تيسا مركان قفك مسلمك مركي إلهي إلهي سبحانه وتعالى نور كيسا كمد أيا لابتيسا كترة وحق لماها عمل كيسا iyo qalbigiisa iyo shay kastaba oo isaga xaqiisa ah wuxuu noqonayaa nuur markaana sida loo kala iimaan badan yahay ayaa Ilaahay loogu kala dhow yahay sida Ilaahay loogu kala dhow yahayna ummadana waa loogu kala jacayl badan yahay si ummadana loogu kala jacayl badan yahayna dadku way u kala wanaagsan yihiin oo waxa arkaysaa qofkan haduu wanaagsan yahay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu doonayo oo qalbigiisa nuurka iyo diinta ku jira uu weyn yahay waxa arkaysaa qofkaasu وحوي إلهي سبحانه وتعالى قف باهم وحوي قفكي إلهي ويا محوه هلي قفكي إلهي سبحانه وتعالى هلينا محوه أي هندتك حكمة له هل كان إن شاء الله تعالى قصير أقوبا ودرت قادنا سا يعني إن شاء الله تعالى كسوق الدنيا أبي يوسف القاضي إن حوي كل حكمي حدو نكمل ومرضي هارون رشيد ووينا أيا wuxuu sameeyay markhaati buu noqday markhaatinimadii markuu isir fur ayaa wuxuu yiri Abu Yusuf ayaa wuxuu ku yiri adigu markhaati ma noqonaysid ayuu ku yiri sa hadowba macnaha amirul mu'minin Harun Rashid ba maqlay Harun Rashid ayaa loo yimi Harun Rashid ayaa loo sheegay sheekhi ninkii qaadiga ahaa inuu hadalka ku hadlay oo ninkan weyn ee kamid ah umuradiisa inuu ku yiri ma noqonaysid markhaati markuu ku yiri markhaati ma noqonaysid ayaa wuxuu yiri Harun Rashid amirul mu'mininkii weyna ayaa yimi boqorkii islaamka wuxuu ku yiri muxuu ninkan u noqon waayay markhaati wuxuu yiri Abu Yusuf ayaa wuxuu yiri anigu maalin waxaan maqlay isagoo leh anigu waxaan kamid ahay adoomada أمير المؤمنين هارون الرشيد أيان كمده مركانا أنيجنا أما أدون ما نقونا يا مرخاتي أدون مرخاتي ما قالوا مركانا ما دام أي سيدات هاي إجرتك أيوه يري مركا أي سيدات هاي إن مسألة سواء مسألة كله أدونكم مرخاتي ما قلا يو ما قالوا وحوي وأهل مكله لكن المهم حيري نكانوا مرخاتي ما قالوا أو مرخاتي أنا جاي ما نقونا يو maadaama uu adoon adiga ku yahay marka isagu wuxuu ka waday uu sheegayay ma garanaysaa wayna isla fahansanaayeen dhinaca adoonka wuxuu ka waday macnaha waan adeecaya oo adoon ayaan u ahayo waan adeecayayo de waxaan ahay macnaha qof adeecaya oo jecel macnaha jacayl meel uu ka gaaray buu yiri adoon baan u ahay taasuna de waxa weeye deema banaana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa adoon loo yahay almuhim adigu hadalka daahirkiisa ayuu qaatay soo ku baneenaya ayaa wuxuu yiri ninkan aniga adoon ima noqonayo isagoo awal ba fahansanaada heerkan inuu gaadhsan yahay laakiin wuxuu diiday inuu adoon kan markhaati gasto maadaama uu yiri adoon ayaan ahay wuxuu yiri markaana ninkan markii la weydiiyay mar kale ee lagu yiri maxaa ninkan markhaatigiisa u celisay wuxuu yiri ninkan horta wuxuu yiri anigu adoon baan u ahay amirul mu'minin hadduu adoon ahayn been buu sheegayo de qof kaadib ah aniga iima noqonayo markhaati ma galayo qof kaadib ah markhaati iyo waxa ma galo
hadduu run sheegayana uu yiri adoon baan ahay dee qof adoon ah markhaati ma galo labada dhinacba uu ka gubtay markaana qofka saas awaye markaa sidaas weeye hadhow baa wuxuu yiri amiirulmu'miniinkii baa yiri oo anigu haddii aan markhaati isku dayo inaan noqdo ma gelayaa markhaatiga isla markiiba wuu isxasuustay moogtahay amiirulmu'miniinkii baa isxasuustay sababtoo hadee boqoradaasu xoogaa macsiyay samayn jireen xoogaa khaladaad fara badan ayay samayn jireen markaana wuu isxasuustay ilaa wuxuu la taagan yahay maanta sheekh weyn buu la taagan yahay oo qaadiya oo run ka sheegaya diinta ayuu la taagan yahay wuu isxasuustay isagii baa fakaray sababtoo hadee qofka wanaagsan markuu qofka diinta kala xisaabtamo ka ag taagan baa xitaa isxasuusanaya maadaama uu isagu diinta khilaafo hadduu yahay qof diinta khilaafa hadhow baa wuxuu yiri oo anigu haddii aan markhaati noqdo markhaatinimadeeda ma la aqbalayaa wuxuu yiri maya lama aqbalayo markhaatinimadaada suu yiri sabab hadda waa amiirulmu'miniinkii ayaa wuxuu ku yiri markhaatinimadaada lama aqbalayo sababta ah adigu tatakabbaru cala allah adigu ilaahay baa isu kibrisaa oo falaa takhruj ila aljamaacati jamaacada salaada uma soo baxdid oo kibir meelaad ka gaadhay gurigeegaad ku tukataa dadkaad ku tiraahdaa jamaacada aada salaada jamaacada gurigiina ku tukataa dadka jamaacada usoo dirtaa adigu jamaacada ma timaadid kow walaa tusalli maca alcaamati almuslimiin oo caamada muslimiinta asal ahaanba lama tukatid dadka islaamka ah lama tukatid waa iska kibrisaa qasrigaaga iyo meelahaas guryahaaga ayaa ku tukataa taasuna waa ilaahay subxaanahu watacaala iskibrin ah ilaahay iska kibrinaysa diintiisa maxaa yeelay ilaahay diintiisa xilli kastaba waa inaad ku dhaqantaa mar kastaba oo aad cid kastaba aad la joogtidna waa inaad diinta ilaahay dhaqan gelisaa oo aadan cid bili aadana waa inaadan uga tegin taasuna adoon ilaahay subxaanahu watacaala abuurtay uma aha macnaha kuma habboona haddaa adoon tahay waxaa kugu habboon inaa ilaahay subxaanahu watacaala ka baqdid hadhow haaruun hadalkaa markuu maqlay ayuu toobad keenay masaajidkii wuu aaday oo jamaacadii wuu yimaadaa wakaana yakhruju ilayhi cinda kulli salaad kastaba masaajidka jamaacada ayuu aadaa sidaas ayuu ku toobad keenay waxaa lagu haystina waxaa weeye waa jamaacada inaadan iman oo macnaha weliba imaantiku waaba caadiye inaadan iman marmar hawl bay ku qabsan kartaa laakiin inaad iska sii kibrisid oo aad tiraadid anugu waxaan la tukadaa aan maamulo iyo waxaas maya adiga sharaf ku tahay waaba tujinaysaaba ilaahay subxaanahu watacaala qofka weyna sharafta leh dee booskiisa wuu dhigay haddaa sharaf leedahay booskaaga ilaahay subxaanahu watacaala wuu ku dhigay haddii aadan lahayn dee maxaad doonaysaa soo maha marka haddii aad sharaf leedahay oo dadka amiirulmu'miniin tahay masaajidka tuji baa lagu yiri oo jamaacada dadka hogaamin baa lagu yiri oo adigu mikrofoonka qadaa lagu yiri oo xitaa adigu hadal baa lagu yiri oo salaada jimce khudbada adigu akhri oo masaajid hadday tahay waa inaa imaam u noqotaa dadka sida aad imaam ugu tahay meelaha kale ee xukunka ah haddaa xukunka imaam u tahay masaajidkana imaam baa u tahay weliba beriga hore dadka carabta ama dadkaas waxay yaqaaneen beriga hore qofku hadduu masaajid tujiyo inuu imaamyadana qaadi karo qofku hadduu masaajid tujiyo oo dadka masaajidka tujiya yahay inuu imaamyada qaadi karo laakiin sida haddeer maaha oo dadka dad khaas oo masaajida tujiya ay yihiin maaha boqorka magaalada wasiirka magaalada wasiirada madaxda magaalada haysta mid kasta oo masaajid inuu tujiyo oo isagoo hogaamiya weeye laakiin waxa weeye berigaad saasay ahayd qofkii ummadda hogaamin kara ayaa masaajidkana tujin jiray laakiin xilliyeeda dambe way isbedeshay waxaa jira macnaha in masaajidadii xitaa amiirku xor buu u yahay inuu intuu masaajidka yimaado oo sheekha weyne magaalada iyo masaajidka intuu u yimaado oo dhawaanaha tujinaya aniga qofka adduuma keensanaya aniga jimcaha akhrinaya meesha isaga bax aduu kitaabadaada iska akhri dadkaaga diinta u bar oo faafi oo masaajidka kitaabka ka akhri laakiinse wixii tujinaya wixii jimcaha aniga xaqayga way isaga cid kuma haysto wuxuu doono sameyn karaa almuhim waxa weeye waa shay wanaagsan in dadka waaweyn wax loo sheego dadka umurada wax loo sheego in sida wax loogu sheego oo wax loo fahansiiyo in aanan laga baqin oo laga haybeysan oo qofku ilaahay subxaanahu watacaala inuu ka baqo oo uu ka haybeysto
oo qof kastaba uu u sheego xaqa iyo diinta. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.